Halo, waan salaamayaa dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaanba. Magacayga waxaa la yiraahdaa Faiza Axmed. Waxaan halkan uga jawaabayaa nimankii videoga soo geliyay internetka oo aflagaadadii cayda iyo dhaarta u geysanayay ummadda Soomaaliyeed ee aaminsan Masiixiga. Qodobadaasna waxaa ka mid ahaa 4 qodob oo aan la yaabay, aan doonayana inaan halkan wax ka iraahdo. Qodobka koowaad waxaa ahaa waxa Masiixiyiintu aaminsan tahay. Ugu horreyntii anigu waxaan ahay Masiixiyad, gabar Soomaali oo Masiixiyada. Waxaanan aaminsanahay Masiixiyaddu inay tahay badbaado, nabad, jacayl. Guud ahaan Masiixiyaddu waa caqiido, waa wax dad badan oo ummad badan ay aaminsan yihiin. Waa caqiido ummadda adduunka oo dhan aaminsan yihiin, waxaana dadku u yaqaanaa Christian, carabigana waxaa loo yaqaanaa Masiixi. wax aan ku raacnayn waxay tahay waa nabadda iyo jacaylka, waana wax aan ku qanacsannahay aamin ahaan. Qodobka labaad waxa ay tahay sababta ay la yaabeen Soomaalida, sababta ay Soomaalida banaanka u soo istaageen ay u yiraahdeen waxaan aaminsanahay Masiix. Sababta waxa ay tahay caqiidadeena waxa ay sheegaysaa inaad Rabbiga u marqaati furtid oo qiratid waxa aad aaminsan tahay. oo Rabbigeenana wuxuuna faray inaan Injiilka quruumaha gaarsiino oo aan u sheegno warka farxadda leh ee aan helnay. Annagu maan ahayn askar dad ka soo carartay ama jabhad dawlad ka soo goosatay oo maaragtay meel timid maanan ahayn. Waxaan ahayn dad ummad ah oo aaminsan Soomaalinimadooda iyo sharaftooda. Wixii noo fiicnaana aan aragnay oon raacnay wuxuu ahaa Masiixa. Masiixana qofna uma yimaado ilaa Aabbaha uu u yeero. Kuwa helay baa nasiib leh. Haddaba maanta oon joogno oo waqtigan taagan yahay, qarnigan la taagan yahay, waa dad wixii 21aad. haddaad fiiriso baaqa caalamiga ee xaquuqul bini'aadamka qodobkiisa 18aad, qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xorriyad fikrad, wacyi, diinta. Labaad, midda kale qofku uu xaq u leeyahay inuu bedelan karo diinta iyo wax alla wuxuu aaminsan yahay. waxa kaloo qofku xaq u leeyahay inuu kali ahaan isagoo dad la heliyaan meel fagaaro ah banaanbax kusoo banaanbaxaan kuna muujiyaan waxbaridooda, dhaqankooda, caabudadooda iyo cibaadaysigooda. Waxaan u malaynayaa waxa ay sameeyeen Masiixiyiintuna waa waxa qodobkaas. Tan saddexaad oon la yaabay oon markasta maqlo waxa ay tahay in la dilo qofkii diinta Islaamka ka baxo. ugu horeysa Ilaahayna Jesus Christ Ciise Masiix wuxuuna yiri tuugu wax kale uma yimaado
inuu wax xado oo dilo oo haleeyo mooyaane anigase waxaan u imid ayuu leeyahay rabbiga inaad nolosha haysataan oo badbaadaan waan u imid qofka tuuga ah he comes only to steal, to kill and to destroy. And God said, I come that I might give you life and have hadaad ogolaataan wey to fulfill. Marka kitaabka English iyo Soomaaliga way ugu qoran tahay. Midda afraad oon la yaabay dee kulama yaabayo qofka tuuga hadduu dilo qofka uu yiraahdo waan dilayaa waa caadi waxa shaqadaadu maad gudanaysaa. Midda afraad oon la yaabay waxay ahayd waddanka Soomaali Christian ma soo geli karto oon dowladda waxaan ka codsanayaa buu yiri ninkii in la dilo. Waddanku waa Soomaali, masiixiyadana iyo aaminkuna way kala duwan yihiin. Hadday yimaadaan dila anu arrintaas intaanan gudaha u gelin ilaahaygeega wuxuu ka oranayaa ayaan ku hormarayaa. waxay idinku soo saari doonaan sanagyo weliba saacadu imaanaysa in mid walba oo idin dilaa uu u malaynayo inuu ilaahay u adeegayo oo waxyaalahaas u samayn doonaan waayo waxayna garanayn aabbaha ilaaha awoodda leh iyo anigaba toona. laakiinse waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay markay saacadu timaado inaad soo xasuusataan. tan iyo bilowgii waxaas idinkulama aan hadlin maxaa yeelay waan idinla jooga. in qofku na yiraahdo sidaas ma aragtay waan dilayaa rabbigeenaba noo sheegaba. anigu ahaan waxaan ka oran lahaa anigu Soomaali baan ahay, dalkayga jecel, dhulkayga hooyo, dhulka Soomaali baa leh caqiidadan qofka gaar u tahay. dadka qaarkiis waxaad moodaa inay ku nool yihiin dhulka hoostiisa oo adduunba ogeyn waayo qofka adduunka la socda waxa uu ogyahay in dunidu maanta hal guri tahay. haddaan si tusaale u soo qaato Soomaali badan oo wadamada Kirishtaanka jooga waana lagu soo dhaweeyaa sababtoo ilaahooda ayaa wuxuu yiri dadka soo dhaweeya oo caawiya. ilaaha Kirishtaanka waxaa laga yaabaa ninka sidaas u hadlaayay ciddiisa inay degan tahay. waxaa laga yaabaa inuu asaga xataa beri yimaado. marka waxaa fiican waxa ay dadku ku hadlayaan inay ka fiirsadaan. annagu walaalo waxaan nahay walaalihiin, waana idin jecelnahay, waana idin soo duceynaynaa in rabbiga idin badbaadiyo. waxa aad aaminsan tihiin iyo waxa aad tihiin anagu waxba kama sheegayno, waana idin soo duceynaynaa. nabad masiixiga idin jirto. amiin.